madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow shacabku ku salaamaya satirkay ku ilaaliye shacabku ku salaamaya satirkay ku ilaaliye سعد القرحان يو سناني عدالة بان سعد القرحان يو سناني عدالة بان كما وذا سوغيناي سليقاقو وشرفي سهانكاقو وقولي سعدالكاقو ونبضي سفركاقو وقيري يا سماد برواقادي صدوو صدوو مدحوينهنا صدوو 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 مدحوينهنا صدوو ومكان سنة بدن سلعيو دبسو مريي ومكان سنة بدن سلعيو دبسو مريي adigay ku sugayaano ku saacabto mayane adigay ku sugayaano ku saacabto mayane soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow makaan sanada badan silciyo dib soo marayay makaan sanada badan silciyo dib soo marayay adigay ku sugayaano ku saacabto mayane adigay ku sugayaano soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow lagu farxa sama iya gargaar wado suuradaada waa lagu farxa sama iya gargaar wado kisamaha wade soomaalida mideeyayo kisamaha wade soomaalida mideeyayo waku daba soconaye suran quraana wada mariyay soo majestihiyo soomaalidu simantahayo safarkaagu waa qayre iyo samaad barwaaqaade soo dhawow madaxweynaheena اللهم صل على خير خلق سيدنا
اللهم صل على خير خلق سيدنا اللهم صل على خير خلق سيدنا ما أحلى بذكر النبي ما أمي ذنبنا اللهم صل على خير خلق ما أحلى بذكر النبي ما أمي ذنبنا أحمدنا من أن نجيب أكلا لمدحتنا ما أحلى بذكر النبي ما أمي ذنبنا waxaan u aragnaa gobonnimo iyo guul Soomaali u soo hoyatay inay tahay gaar ahaan Puntland inuu 41 sano muddadii burburka dalka soo gaaray wali soo dhaweynta leeg oo madaxweyne reer Soomaaliya loo sameeyay maartay mas'uul soo joogto ma arag madaxweyne siyaad bare ka dameeyay oo madaxweynahan iyo siyaad bare u dhaxeeyo ma arag aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadku aad bay u qiiraysan yihiin dareen farxadeed baa meesha ka jira soo dhaweyn dad intaan leeg meel isugu yimaadeen waa madaxweyne isugu yimaadeen maanta ugu horeysa aad iyo aad baan u bogaadinayaa madaxweynaha inuu soo booqdo Puntland bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha golaha shacabka Soomaaliyeed ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ilaahay idinka xilkoodana Allah u fududeeyo Soomaalina Allah israaciis Soomaaliya ha noolaato ha midowdo xuduudeedii aqligeeda Allah mideeyo haddana waxaan leenahay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo dhawo madaxweyne waa dalkaaga weeye walaal waa dhawahay ma sha Allah waxaan soo dhaweynayna madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Mudan Cabdullaahi Farmaajo gacmo furan ku soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan soo dhaweynayna imaanshaha madaxweynaha Farmaajo waxaan kaloo aan aad iyo aad maanta aan ula yaabanahay soo dhaweynta dadka tirada badan weligay maan arkin in weyn baan ahay sida loo soo dhaweeyay dadka shacabka si uu soo dhaweeyay rag iyo haween culimo qof walbaba waxaan kaloo aan soo dhaweyn doonaa insha Allah ra'iisul wasaaraha Xasan Khayre sunana ah nin muwaadin ah oo ra'iisul wasaaraha waa mahadsantahay magacaaga Iimaan Cabdirasaaq Baliirada waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magaalada Garowe aad looga soo dhaweynayo dadka reer Puntland oo dhan u taagan yihiin soo dhaweyntiisa madaxweynaha Soomaaliya waa madaxweynihii Soomaaliyeed Said baan soo dhaweynaynaa alxamdulillah rabbil ilaahay nabad ugu keeno ilaahay nabad meeshu ka yimaada ugu celiyo insha Allah adaa mudan bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan taaganahay soo dhaweynta madaxweynaha dawladda Soomaaliya maanta kale waa maalin weyn waxaan kaloo ku faraxsanahay Puntland inay yeelanayso laba airport oo caalami ah runtii aad iyo aad baan soo dhaweynaa mahadsantahay arsaas madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow shacabku ku salaamaya satirkay ku ilaaliye shacabku ku salaamaya satirkay ku ilaaliye sadaal qurxooniyo sinaaniyo cadaalad baan sadaal qurxooniyo sinaaniyo cadaalad baan kama wada sugaynaaye saldhigaagu waa sharafey sahankaagu waa guuley socdaalkaagu waa nabadey safarkaagu waa qayrey iyo semaad barwaaqaade
badan siliciyo dib soo marayay adigay ku sugayaano ku sacamba tumayaane adigay ku sugayaano ku sacamba tumayaane soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow Soomaalida mideeyayo waa ku daba soconaaye suran quraana wada mariyay soo majestihiyo Soomaalidu u siman tahayo safarkaagu waa qayre iyo samaad barwaaqaade soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan maanta sharaf weyn inoo ah inaan halkan ku soo dhaweyno madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo booqasho noogu yimid madaxweyne ku soo dhawow Puntland oo adigana ku jecel Soomaalnimada jecel ku soo dhawow dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin inay kugu soo dhaweeyaan qalbi furan iyo gacmo furan xaaladda ay ku sugan yihiin iyo horumarka ka socda iyo dowladnimada ka jirta aad aragto la qaybsato talooyinkaaga iyo fikirkaaga dowladnimada diyaar u ah inay dhageystaan ka qayb qaataan horumarka Soomaaliya geedi socodka nabadda Soomaaliyeedna ay kugu taageeraan si Soomaaliya ay u gaarto qarannimo dowladnimo hagaagsan nidaamkii iyo horumarkii Soomaaliya lagu aqoon jirayna iyo gadaalideeda diyaar u inay ka qayb qaataan madaxweynuhu wuu nala joogayaa muddo dhowr bari ah arki doona dalka iyo nabadda ka jirta iyo nidaamka dowladnimo ka jirana marka madaxweyne ku soo dhawow Puntland بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan maanta aan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan socdaal ku joogo magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland iyo madaxweyne adiga iyo dowladdaada sida sharafta leh oo wanaagsan ee aad noogu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga xaqiiqatan laba jeer hore yaan baajinay duruufo shaqo awgeed maanta aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay inaan intaasoo qof oo reer Puntland reer Garowe ah inay sidaas wanaagsan noo soo dhaweeyaan oo ay jidadka taagnaadaan oo calama qoyan ay noogu soo dhaweeyaan aad iyo aad yaan uga mahadcelinayaa aad iyo aadna ugu faraxsanahay halkan waxaan u imid inaan halkaas soo sheegay madaxweynaha xaaladda halkan ka jirta
kow ka tahay inaan xoojino nabadda aan xoojino oo aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta waxaan jeclahay inaan tago dhowr magaalo oo aan dadka la kulmo uqaasha salaadiinta dadka maxaan ku rahdaa aqoon-yahanada civil society-ga jaamacadaha ardada dhigta guud ahaan inaan la kulmo oo ay la wadaagaan iyaga naftigooda waxa meeshaan ka jira aniguna aan la wadaago taladeeda iyo waxa aan ku biirin karo insha allahna wax badan yaan isweydaarsan hadduu ilaa yidhaahdo waxaan kusoo gabagabeynayaa runtii waa soo daahay reer Garowe reer Puntland raalli ahaadaan waa soo daahnay waxaana u soo daahnay wax kale ma ahayn duruuf shaqo awgeed insha allahna waan kusoo noqonaynaa aniga iyo dowladda federaalka insha allah hadduu ilaa yidhaahdo waa mahadsantihiin